waxaan halkan ku qabanaya shir tirayd oo aan uga gol leeyahay inaan u iftiimiyo ummadda Soomaaliyeed inaan ahay musharax u taagan xilka xubinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan dhowr waxyaabood isdul taago warbixin kooban siiyo ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha ugu waaweyn ee aan isugu taagay xilkan qaran waa sababo jira iyo duruufo jira awgood waxaana ugu weyn waxyaabahaas oo ay salka ku haysay markii aan arkay dadkii ay ciil iyo dib kuba qaba inta markaan ka gudbo waxyaabaha labaad ee u kala waxa kamid ah dadkii dhalinta ahaa ee da'yarta ahaa ee danyarta ahaa ee loo rabay in kursigan uu u khidmeeyo oo shaqo u qabto ee ahayd inay wax badan kaga baaqsadaan oo wixii ka waayay waxaan aragnay in da'yartii ay ku daadanayso badaha in da'yartii ay droogo iyo qaad iyo maanduuriyaal iyo wax la mida ay jiidatay waxaan aragnay in dhalinyaradu ay mustaqbal madow oo adag ay wajahayaan waxaan aragnay in ay shaqo la'aan iyo duruufo adag oo aysan ka bixi karin waqtigan adag ay wajahayaan sidaa daraaddeed ayaan u goostay u istaagay inaan xilka xubinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya buuxiyo haddii ay ii doortaan oo ii gartaan isimka ay khusayso garajaamac garaad Ismaaciil iyo kontonka ergey ee ciidaas ay leedahay waxaan rabaa inaan u iftiimiyo in haddii kursiga la idmado oo cod lagu siiyo inaan mas'uuliyadda iyo siyaasadda iyo baahida ay leeyihiin aan wax ugu qabto oo shaqeeyo oo aan ugu adeegin xisbi urur iyo mid aan khusayn oo aysan intifaacsan cid iyaga ka soo horjeeda iyo cid iyagu aysan ogolayn toon oo aan ugu khidmeeyo kooda jilicsan ka ardayga ah ka tabaalaysan ka dhakhtarka u baahan iyo kuwa agoomada ah iyo kuwa jilicsan waxaan rabaa inaan dowlad qaran oo qurux badan oo ka fog corruption musuqmaasuq isdabamarin amni xumo iyo waxyaabo la mida oo keeni karaya fadhiid dalkan iyo dadkan ku keeni karaya in aan ku dooran kuna dhisin lagana qayb gelin dowlad qurux badan oo loo ayo oo ummadda Soomaaliyeed ku faanto oo taariikhda u gasha oo waxyaabaha dhibaatada iyo burburka iyo halaaga ii dhacay lagaga dawoobo aan u soo dhisno ugana qayb gelino waxaan rabaa in aan arintayda waxyaabaha aan soo tiriyey ay sal u ahaayeen meelahana ay daaran tahay waxaan rabaa inaan baaq u diro garajaamac garaad Ismaaciil iyo kontonka ergey iyo cuqaasha iyo dhammaan beelweynta kursigaas uu ka dhaxeeyo in ay ka fakaraan ka tashadaan ka buuxsadaan meelmarinta xubinta baarlamaanka u matalaysa aqalka shacabka Soomaaliyeed si ay baritoole ugu baahi baxaan danahoodana ay uga fushadaan si aysan u marin wadadii cagaaga iyo dhibka badan loo maray ee laga maray ee hore
inay ka fogaadaan waxaan rabnaa in ay dib u taliyaan quality-ga iyo shakhsiyadda iyo aqoonta iyo kartida iyo marjaca dambe ee qofkaas leeyahay ay eegaan tixgeliyaan ku doortaan waxaan rabaa inaan dib u xasuusiyo ergada in ay codkooda iyo xulashadoodu tahay mustaqbalkoodii berri ay intifaacsan lahaayeen waxbarasho ku heli lahaayeen nolol ku heli lahaayeen kaga bixi lahaayeen burburka iyo qoysaska burburaya wiilasha yaryara shaqalaanta haysato kuwa isguursanaya isfuraya kuwa daroogada iyo maanduuriyaha gidarada la fadhiya kuwa qabyaalada ka sheekeynaya kuwa shaqala-aantu la fadhido kuwa wajahaya mustaqbalka madow inay waxaas oo dhan qalbiga iyo maanka ku hayaan marka ay wax dooranayaan sababahaas iyo sababaha ka soo horjeeda ku xalliyaan codkooda oo ku meelmariyaan baaqa waxaan u dirayaa ergada konton iyo kowda ah ee kursigaas wajahayso waxaan baaq kale u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo soo xulanaysa xubnaha baarlamaanka iyaguna inay sidaasi la mida ku soo xushaan ku soo doortaan si loo helo baarlamaan nadiif ah oo ka hufan xagtirnimo iyo waxyaabihii kuwii hore ku caanbaxeen ee ay inoogu midho dhali weydii si ay inoogu soo baxaan xubno baarlamaan oo nadiif oo hufan si aynu helno madaxweyne hufan oo nadiif ah oo inoo adeega inoo shaqeeya si aynu helno xukuumad tayeysan oo quality leh oo siyaasaddeena arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ka iibgeysa oo cuntata si aynu helno maamul wanaagsan oo suuban si aynu helno dawlad dhammaystiran oo kaabayaasheeda dhaqaalaha iyo kuwii amniga iyo kuwii siyaasadda iyo kuwii sharci dejintuba u dhan yihiin oo ummadda Soomaaliyeed 25 sano in ka badan bay burbur iyo dawlad la'aan iyo ku meel gaar iyo rafaad ku soo jirtay ay kaga baxaan waana maanta taladu beesha caalamka iyo madasha wada tashiga iyo maamul goboleedadu waxay gacanta ku soo celiyeen kursiga doorashadiisii shacabka markii la waayay one man one vote ayaa waxaa la adeegsaday in la adeegsado goob iyo konton matasha ummadda Soomaaliyeed qabiil kasta oo xubinlana ay soo xili doonaan sidaas daraadeed awoodii gacmihiina ku jirtaa dawladnimadii gacmihiina ku jirtaa xulashadii gacmihiina ku jirtaa sida aad u shaqaysaan ee u talisaan ee aad xubintiina u qurxisataan baa dawladda Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed noo qurxinaanay hadii aad kuwii bari soo celisaan hadii kuwii ku la mid ah soo celisaan waxaad ogaataan inaad 4 sano oo dambe gacanta dhexda ka sii qaniini doontaan taladuna aysan tii maanta idin hortaalla mid ka duwan ay bariidi hor oolayso waxaan ku soo ururinayaa musharaxnimadayda inahaas iyo in ka badan bay maagan tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadkii taageerayaashayda ahaa saaxiibaday ahaa wada tashiyada kala duwanaan la sameeyey ee ugu garab galay ugu dhiirigeliyey inaan isu taago xubintan waxaan mar labaad u mahad celinayaa dadkii reer Lascaanood sida fiican ee quruxda badan deegaanimada iyo tuulimada ay u soo dhaweeyay waxaan marka ugu dambeysay u mahad celinayaa warbaahinta gobolka Sool qaybaheeda kala duwan iyo wariyaasheeda kala duwan ee ka howlgala website-dada iyo TV-yada iyo tiradaha kale oo si furan oo kaliya laaba igu soo dhaweeyay ilaa iyo maalintii aanimina dhinac taagnaa